fiid wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada tabin iyo taxliilin kale oo kamid ah ciidamada kooxda xuutiga ayaa cagta mariya saldhigyo kala duwan oo ay lahaayeen ciidamada dowladda Yemen ee caalamku waa aqoonsan yahay ee ka shidaal qaata wadanka Sacuudi Arabiya 42 kamid ah ciidamada dowladda ayaa la dilay saldhigyo kalena waxa lagu soo waramayaa in laga qabsaday haddaba xulufadii Sacuudiga ee wadanka Yemen gaar ahaan dowladda caalamku waa aqoonsan yahay maxay tahay tabaryarida ka muuqanaysa iyo awoodda kooxda xuutiyiinta ay ku leeyihiin wadankaasi Yemen colaadii Yemen oo mar kale bilaabatay gobolada Ma'rib iyo Hadr al-Maut oo laga soo waramaya caawa birta inay ka aslan tahay ciidamadii dowladda ayaa idin la wadaagaya sidoo kale qodobadaan idin haya waxa kamid ah dowladda Sacuudi Arabiya oo isku dawaysa maalmihii ugu dambeysay xulufo dagaal oo dhinaca badda ah ayaa ku dhawaaqay sargaalka hogaamin doona howlgalka dhana ciidamada xuutiyiinta badda cas qaliijka cadan iyo badda carabta waxa lagu soo waramayaa xilligan inay ka taagan yihiin dhaqdhaqaaqyo xoog leh halkii biriga la isku baacsan lahaa gunta badda ayaa la isla aaday Sacuudiga dagaalkan awood ma ku yeelan karaa oo kooxda xuutiyiinta ma ka awood badin karaa iyadoo muddo kooban gudaheed 24 markab oo dowladda Sacuudigu ay lahaayeen ay weerar la kulmeen iyana waan eegi doonaa dowladaha ka qayb qaadanaya wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe ayaad maqli doontaan Turkiga oo Israa'iil ku cadaadinaya qorshaha nabadda ee Gaza xiisad ka taagan Lebanon iyo waliba Hormuz dowladda Iran oo sheegtay heshiiska ay la gaartay wadanka Oman macnihiisu inaysan ahayn in dowladda Mareykanka laga joojinayo cadaadiskii oo dib loo furayo marinka Hormuz waxaan sidoo kale eegi doonaa wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Turkiga ayaa digniin adag siisay nidaamka Israa'iil Erdogan ma waxa uu markan garwaaqsaday in aanu ka badbaadi karayn dagaal oo waxa uu doonayaa in nidaamkan la yiraahdo Israa'iiliyiinta ay garoodda isla galaan sidee wax u socdaan waan eegi doonaa qodobadaasi iyo kuwa kale oo guud ahaantoodba dul maraya gobolka bariga dhexe xiisadaha taagan dhaqdhaqaaqyada iyo waliba hanjabaadaha isfeer socda oo dhinacyadu ay iswadaarsanayaan hase yeeshee haddii su'aasha caawa idin dhex dhigo dowladda Turkiga in muddaaba waxay afka kala dagaalaysa nidaamka Israa'iil haddaba ma waxa la gaaro xilligii wasaaradda difaaca Turkigu ay u diyaar garoobi lahayd dagaalka ka dhanka nidaamkaasi Israa'iil maanta waxa Yemen ka dhacay waxay ahayd wax laga sheekeeyo kooxda xuutiga ahayd waxa ay soo bandhigeen awood xoog leh waxana cagta la mariyay saldhigyadii dowladda caalamku waa aqoonsan yahay ee Sacuudiga mushaaraadkeeda uu bixiyo Hadr al-Maut iyo waliba Ma'rib oo ah laba gobol oo xasaasi ah haddana istiraatiiji ah marka la fiiriyo ee wadanka Yemen maanta waxa ka dhacay dagaalkii ugu kululaa 42 kamid ah ciidamada qaranka ee wadanka Yemen ayaa la dilay xuutiyiintuna waxa ay bilaabeen inay ku siisiqaan goobaha dowladdu ay gacanta ku hayso iyadoo ujeedadu ay tahay gobolada muhiimka oo dhan kooxdaas inay gacanta ku dhigaan xuutiyiintu waxay isku arkayaan dowladda sharciga ah inkastoo uusan caalamku si weyn u aqoonsan haddana nidaamka Cabdimalik al-Xuuti ee gacan saarka la leh dowladda Iran waxa ay ku fara adeegayaan wadankaasi inaan looga adkaan iyadoo haatan la isla galay wadanka Lebanon sidoo kalena gacanta Syria horey looga bixiyay nidaamka Iran waxa ay ku fara adeegayaan wadankaasi Yemen sida ay u sii joogi lahaayeen ila xogogaal ayaa sheegaya in ugu yaraan 42 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Yemen ay ku dhinteen in ka badan 50 kalena ay ku dhaawacmeen kadib weerar xuutiyiintu ay ku qaadeen xariyo ciidan oo ku yaala gobolada Ma'rib iyo waliba Hadr al-Maut sida ay sheegayso wakaaladda wararka Ruushka ee Novist qasaaraha ayaan wali ahmid hordhaca iyadoo ila wareegyadu ay sheegayaan in tirada dhimashadu ay sii kordhi karayso maadaama ay jiraan dhaawacyo aad u xoogan oo halis ah oo soo gaaray baa leeyahay ciidamada dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay telefishinka nidaamkaasi xuutiyiinta al-Musira oo afkooda ku hadla ayaa ku dhawaaqay in saacadaha soo socda la filayo bayaan rasmi ah oo ka soo baxa xuutiyiinta kaas oo lagu shaacin doona baa leeyahay waxa ay ku tilmaameen howlgallo ciidan oo ballaaran
oo tayo sare leh sida hadalkooda ka muuqanaysa. weerarka ayaa imaanaya xilli xiisada militariga ee wadanka Yemen ay mar kale sii xoogaysanayso iyadoo ay si soo talayaan weerarada u dhaxeeya Xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay. wararka ayaa wali soo baxaya waxaana la filayaa faahfaahinno kale oo dheeraada in ay bannaanka yimaadaan maalmaha soo socda sida wararku ay tilmaamayaanba. waayahay iyadoo Xuutigu ay muujinayaan dardar iyo dagaal xoog leh si ay u sii xaqiijiyaan jiritaankooda iyo joogitaankooda gobolkaasi bariga dhexe iyo waliba ee dalka Yemen, haddana warar kale oo soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in xulufada Carabta ee Sacuudiga uu hogaaminaya ay magacaabeen taliyo wadaag ah oo amarka ay ka qaadan doonaan xulufada dhinaca badda ay Carabta ah ee gacan siin doonta dowladda Sacuudiga, kuwaas oo ujeedadoodu yahay inay weerar ku qaadaan ciidamada Xuutiga ee badda ka wada baa la yiri weerarka xoogga leh ee ka dhanka wadanka Sacuudiga. dowladda Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqday tallaabo cusub oo lagu xoojinayo ammaanka badda cas iyo gacanka Carabta kadib markii si rasmi ah ay u magacaabeen taliyo hogaamin doona isbahaysiga badda ee dalal badan ka kooban baa la yiri. wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa Khamiistii sheegtay in sarreeyo guuto oo dhinaca badda ciidamadooda ah oo lagu magacaabo Cabdullaahi bin Saciid Shahri loo magacaabay taliyaha isbahaysiga, taas oo qayb ka ah dhamaystirka qaab dhismeedka hoggaanka isbahaysiga la aasaasay 30 Luulyo ee sanadka 2026. sida lagu sheegay war-saxaafadeedka wasaaradda, magacaabistan ayaa muujinaysa sida dalalka aasaasay isbahaysigu ay uga go'an tahay dhamaystirka nidaamka hoggaanka iyo ismaamulka si isbahaysiga uu fuliyo waajibaadkiisa difaac si hufan oo ku aadan baa la yiri isku dabarid xoog leh oo lagu badbaadinayo hantida qaran ee wadankaasi Sacuudiga loogana hortagayo faragelinta kooxda Xuutiga ee ku shaqeynaysa dalaha Iiraan. hogaamiyaha cusub ayaa mas'uul ka noqon doona hogaaminta taliska wadajirka ciidamada badda, isku dabaridka howlaha dalalka xubnaha ka isbahaysigan, maamulka howlgalka wadajirka iyadoo la raacayo xeerarka iyo heshiisyada isbahaysigan. wasaaradda difaacu waxay sheegtay in ujeedada ugu weyn ee isbahaysigu uu yahay sugidda amniga badda, ilaalinta xorriyadda maraakiibta ee marinkaasi maraya, difaaca marinada istiraatiijiga ah iyo marinbiyoodkan muhiimka ah, taageeridda ganacsiga caalamiga ah iyo waliba sahayda gooshaysa oo isku xiraysa adduunka oo baddaasi maraysa. waxay sidoo kale wasaaraddu xustay baa la yiri in magacaabistan ay dardar gelin doonto dhismaha xarumaha hoggaanka iyo waliba taliska wadajirka, isla markaana ay kor u qaadi doonto diyaargarowga isbahaysigu uu ku bilaabayo howlgallada difaaca badda ee ka dhanka kooxda Xuutiga ee gacan saarka la leh dowladda Iiraan. isbahaysigan cusub ayaa lagu dhawaaqay xilli ay sii kordhayaan xiisadaha amni ee ka taagan badda cas, gacanka cadmeed iyo gacanka Carabta, halkaasi oo weeraro ay ku bartilmaamaysanayaan maraakiibtu ay bilaabeen kooxda Xuutiga ee wadankaasi ay Yemen ka howlgalaysa. dowladda Turkiga ayaa bilowday inay aad ugu cadaadiso Israa'iil inay ka shaqayso arrimaha nabadda ee gacan magaalada go'doonsan ee Gaza, halkaas oo Israa'iil ay u aragto xiisadaha ka taagan in ay ku amarku taaglayso, taasoo Turkigu ay ka biyadiidsan tahay. sida war goor dhaweyd ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Turkiga lagu sheegay. wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Turkiga ayaa sheegay in Israa'iil ay wali caqabad ku tahay hirgelinta qorshaha nabadda, isagoo ku baaqay in ciidamada Israa'iil ay si buuxa uga baxaan marinka Gaza. dagaalka ka soconaya koonfurta Lubnaan ayuu sidoo kale soo hadal qaaday, iyadoo ciidamada Israa'iil ay xaqiijiyeen in hal askari iyo waliba sargaal looga dilay halka 4 askari oo kalena looga dhaawacay dagaaladii ugu dambeeyay, kaas oo ka dhacay baa la yiri dhismo la dhaxgeliyay miinooyin lagu xiray halka loo yaqaan degmada Majdul Siyun ee ku taala koonfurta wadankaasi Lubnaan. isla arintaasi diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeyn ka fuliyay Burj al-Shamali ee gobolka la yiraahdo Zir,
iyadoo warar kale ay ka dhaceen tulooyin kale oo dhowra oo ku yaala koonfurta wadanka Lubnaan. warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in militarigu codsaday in la fuliyo howlgal xasaasi ah oo gudaha Lubnaan kaas oo u baahan ogolaansho siyaasadeed sida hadda ka muuqanaysa waxaana ay ku dhowdahay wadaxaajoodkii Roma in uu u muuqanayo mid heshiiskiisa uu socon laayahay. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wada hadallada u dhaxeeya Washington iyo Tehran ay si wanaagsan u socdaan isagoo muujiyay in rajo laga qabo baa la yiri heshiis laga gaaro xiisada gobolkaasi ka aloosanaysa xoogaysanaysa. Trump ayaa sidoo kale sheegay in heshiis ku saabsan dib u furista marinbiyoodka Hormuz uu aad u dhow yahay in la gaaro isla markaana dowladda Iran ay arintaasi hirgelinayso. dhinaca kale ra'yi aruurin Mareykanka laga sameeyay ayaa muujinaysa cabsi laga qabo fowdo ka dhalato gobolka iyadoo ay muuqanayso in dadka Ameerikaanku ay si weyn uga soo horjeedaan tallaabooyinka Israa'iil ee hurinta colaadda oo ay ku tilmaameen inuu curyaamiyo dhaqaalahooda ay qaban laayeen sida ay sameeyeen baa ra'yi aruurinta wakaaladda wararka Reuters iyo IPSOS ayaa muujinaya in kala bar dadka Mareykanku ay rumaysan yihiin in tallaabo militari oo ka dhana Iran ay kordhin doonaan qalalaasaha bariga dhexe. kaliya 17% ayaa aaminsan inay horseedi doonto xasilooni xoog leh taasoo muujinaysa in wixii hadda ka dambeeya aanay u dulqaadan doonin dagaalkan si xoogaysanaya. dowladaha Oman iyo waliba dalka Iran ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen isafgarad hordhaca oo la doonayo in lagu maamulo arrimaha la xiriira marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz iyadoo dhinacaasi Iran ay tilmaameen in arrintan aan wax kaalina ku lahayn dowladda Mareykanka sida daraadeedna heshiiska aanu ka dhignayn in la furi doono marinkaasi Hormuz sida Trump uu hadalka u dhigayana ay tahay nin isagoo maalin cad soo jeeda riyoonaya waa sida ay yiraahdeen. dowladda Iran ayaa sheegtay in heshiiska laga gaaray ama ay la gaartay baa la yiri boqortooyada Oman uusan macnihiisu ahayn in dib loo furayo marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz iyagoo ku adkaystay in marinbiyoodkaasi uu xirnaan doono ilaa laga soo afjarayo waxa ay ku tilmaameen hanjabaadaha macno darrada ee ka soo baxaya afka Trump iyo dowladda Washington. Abraham Saidi oo xogayaha guddiga amniga qaranka iyo siyaasadda amuraha dibadda ee baarlamaanka Iran ayaa sheegay in wada hadallada Tehran iyo Masqat ay ku koobnaayeen oo kaliya dejinta marinada amniga leh iyo hababka maraakiibtu u mari doonaan gudaha Hormuz balse aysan ku jirin baa la yiri go'aan lagu furayo guud ahaanba marinbiyoodkaasi taasoo dowladda Washington ay ka iibisay caalamka in la gaaray waqtiyadii kama dambaysta ahaa ee marinkaasi la furi lahaa. wuxuu intaasi ku daray in xilligan aysan jirin baa la yiri sabab ku qasbaysa in dib loo furo marinkaasi isagoo carabka ku adkeeyay in Tehran aysan ogolaan doonin faragelin ama joogitaan military oo Mareykan ah oo ay ku yeelan karaan marinbiyoodkaasi. sidoo kalena Trump uu meel cidla ah jafayo isla markaana uu ku dadaalayo in goob ciriiriya uu ciidamadiisa soo dhaxgaliyo halkaasina ay noqon lahaayeen goobtii ay ku biilahaayeen. Iran iyo Mareykanka ayaa 14 Juun sanadka 2026 Pakistan iyadoo baxdigaan ay dhaxdhaxaadinaysa gaaray baa la yiri heshiis hordhaca oo dhigaya wejiga koowaad in dib loo furo marinbiyoodka Hormuz iyadoo badalkeeda la sii deynayo hantida Iran ee dibadda ku xaniban. heshiiskaasi ayaa ujeedadu ahayd inuu socdo muddo 60 maalin ah hase haatee iminka waxa uu muuqdaba in uu dhicisoobay. wada hadalladan ayaa dowladda Oman waxa ay ku tilmaamaysaa inay tahay mid muhiim u ah xal u raadinta dhibaatooyinka iyo colaadda ka aloosan gobolka bariga dhexe sida doodooda ay u dhigaan. wadanka Turkigana waxa uu iminka dareemayaa qatar weyn oo uga soo socota nidaamka Israa'iil waxaana ay ku dhaqaaqeen in wasaaradda gaashaandhiggu ay maanta soo saartay Ankara arrin hanjabaad oo ku socota nidaamka Israa'iiliyiinta. wasaaradda difaaca ee wadanka Turkiga ayaa sheegtay in Turkiga oo aan argagixiso lahayn ay tahay istiraatiijiyadda
lagu xoojinayo amniga qaranka iyo xasiloonida gobolka iyadoo carabka ku adkaysay in Ankara ay sii wadi doonto dagaalka ka dhanka ah argagixisada. afayeen u hadlay wasaaradda difaaca oo la yiraahdo Saki Aktuki ayaa shir jaraa'id uu toddobaadle ah uu qabtay ku sheegay in Turkiga uu guul weyn ka gaaray la dagaalanka argagixisada taas uu ku tilmaamay in ay ku timi dadaalada ciidamada amniga iyo taageerada shacabku ay muujiyeen. waxa uu xusay in guulahaasi ay ka dambeeyeen nafurnimada askartii ku dhimatay difaaca qaranka iyo halyeeyada ku dhaawacmay gudashada waajibaadkooda qaran ee muhiimka ah. waxa uu intaasi ku daray in ciidamada qalabka sida ee wadanka Turkigu ay sii wadi doonaan howlaha lagula dagaalamaya argagixisada iyo dhammaan tallaabooyinka lagu xalinayo guulaha laga gaaray baa la yiri arrimihii ugu dambeeyay ee muhiimka ah. dhinaca kale waxa uu eedayn baan dusha ka saaray nidaamka Israa'iil oo ku tilmaamay in qoray dable ay la wareegayso taasoo ay markasta ku shaashaynaysa nabadda gobolka isla markaana aysan aqbali karin dowladda Ankara tillaabooyinkan. isagoo ka hadlaya xaaladda gobolka bariga dhexe Turki ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay tahay caqabada ugu weyn ee hortaagan nabadda waarta ee xasiloonida gobolka laga gaaro. waxa uu sidoo kale sheegay in Israa'iil ay sii wado carqaladaynta dadaalada diblomaasiyadda ee lagu doonayo xabad joojinta iyo nabadda guud ahaan gobolka gaar ahaan Iran iyo Gaza. sidoo kale waxa uu sheegay in weerarada Israa'iil toddobaadkii hore ku qaaday xariya ay deganaayeen dad barakacayaal ah iyo xarumo caafimaad oo ku yaala Gaza uu sababay dhimashada in ka badan 30 qof oo rayid ah isagoo ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid muujinayo in ay iska indhatirayso sharciyada caalamiga. afayeenkani waxa uu ku baaqay in beesha caalamka ay qaadato baa la yiri mowqif adag oo lagu difaacayo sharciga caalamiga iyo qiyamka bini'aadanimada si loo gaaro xiisadan in la soo gabagabeeyo. ugu dambeyntii dowladda Turkiga ayaa fariin u dirtay dalka Iran iyo waliba wadanka Mareykanka waxaana ay soo jeedisay in caalamka aysan labadooda oo kaliya u qafaalan karin. dhinaca kale wasaaradda difaaca wadanka Turkiga ayaa ugu baaqday Washington iyo Tehran inay muujiyaan dulqaad iyo mas'uuliyad iyo waliba xigmad inta ay socoto wada xaajoodka u dhaxeeya labadaasi dal si heshiiska madambaysa loo gaaro. hadalkan ayaa imanaya iyadoo Washington iyo Tehran ay wali isdhaafsan yihiin arrimo ay ka mid yihiin xorriyadda maraakiibta ee marinka Hormuz. inkastoo hore u kala socdeen heshiis haddana waxay u muuqataa arrintaasi wali inay socon laadahay. Turkiga ayaa mar kale cadeeyay in uu taageersan yahay xal diblomaasiyadeed oo lagu dejinayo xiisadda bariga dhexe isagoo ku baaqay dhammaan dhinacyadu inay ka fogaadaan tillaabooyinka sii horinaya colaadan aadka u xoogan. khiyaarta ay nala socotay intaasi caawa taxliilka wararka ugu waaweyn ee gobolka bariga dhexe iyo waliba dagaalada iyo furimaha kale ee bilowday ayaa ugu weyne marka aad fiiriso sida Trump uu wax wado Sacuudiga waxa ay sameynayaan iyo awoodda Xuutiyiinta ay cagta ku marinayaan ciidamada dowladda caalamku aqoonsan yahay sawir noocay ay ka bixinaysaa gobolka bariga dhexe caawa. magacaadii meesha joogto ku bilow aragtidaadana qaybta hoose ee faallada la aad kadibna ha ilmaamin muuqaalka inaad like saarto saaxiibadaada la wadaagto kala mid noqoto haddii aadan ahayn saaxiibada YouTube-kan ku xiran ee subscribe saaro. aad baad u mahadsantiin.